kulankan casho sharafta ah oo ahaa mid lagu maamuusayo gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iid oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee loo yaqaan Africacom Awards of the Year oo la siiyo hogaamiyaasha ku guuleysta inay wax ku soo kordhiyaan isgaarsiinta iyo teknolojiga Afrika oo ay ka soo qayb galeen ganacsato, wasiiro, madaxda xisbiyada mucaaradka iyo marti sharaf kale ayaa xalay lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. kulankan casho sharafta oo ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Somaliland ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Shukri oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland, Sheekh Maxamed Cali Geedi iyo Cali Cumar Guuleed oo ka mid ah ganacsatada Somaliland. martiqaadkaan diifidinay oo ahaa inaynu ku faraxno inaynu ku bogaadino guushii gudoomiyaha shirkadda Telesom iyo shirkaddu ay ka soo hoyeen Afrika waa guul ay wada leenahay waa guul qaranka Somaliland soo hoyatay, ganacsatada soo hoyatay, shirkadda soo hoyatay, guud ahaan Soomaaliya oo dhan soo hoyatay. arrintaas inaynu maartay ku bogaadino oo la qaybsano farxadeeda weeyno xulkayna halkan isku wada marka aad iyo aad u mahadsantii waqtigiina qaaliga ah soo siiyay in aynu sunnaado la farxno oo muujino gudoomiyaha iyo shirkadda inaynu kula faraxsanahay guusha ay keeneen shirkadda Telesom inay maanta magaca keento oo Cabdikariin magaca keeno runtii waxay tahay wahan iyo hiigsi weyn waxaanay ku ammaanay hiigsiga iyo hanka ay keeneen laana binaadamku iskaga dayda hankii hiigsiga waa la iskaga dayda waxaynu maanta aynu ugu ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala guusha ay keeneen Telesom keentay iyo Cabdikariin Maxamed Iid guusha uu keenay Ilaahay baynu ugu ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in uu xoolaha iyo carruurta iyo shirkadda barakeeyo. Cabdikariin Maxamed Iid guushuu soo hooyey hambalyadeeda ayuu iskugu yimid dadku shalay waanu ugu ducaynaynaa Allah ku barakeeyo. waa caylad qiimo ku leh magaalada Hargeysa kolkaad eegto xagga abtirsiinta aabihii iyo tooyadiiba dad ku leh dalkan taariikh Allah barakeeyo. wasiirada ganacsiga iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada ayaa iyaguna u hambalyeeyay guusha ballaaran ee uu soo hooyay gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin. haddaan nahay masalan dawladaha ma ogtahay helaya mucaawinooyinka dawladaha ma ogtahay helaya ma ogtahay kaaba dawladaha suuq u furan yahay dee wax weyn ma hateen inagoo xirxiran iyo haddana kala taaqishay oo waxaan ma ogtahay غير caadi marka halka waxa lagu celiyay Cabdikariin adigu baa lagu taariikhdeeyay marka waxa weyn anigu waxaan taariikhdeeyay adiga iyo tiimkaad karinaysa waxaan halkan joognaa inaynu hambaleyno gudoomiyaha Cabdikariin Maxamed Iid oo ku guuleystay abaalmarinta la yiraahdo CSO ama African CSO Award. abaalmarinta hore waxa abaalmarinta leadership ama hoggaanka weeye annaguna wasaarad ahaan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa. marka Telesom iyada hormuud u ah shirkadaha wadanka aad baan ugu hambaleynaynaa gudoomiyaha iyo tiimka haday noqoto boardka iyo maamulka iyo shaqaalaha iyo inta aan la arkayne wadda maartay daily operationka shirkadda. marka waxaan leenahay hambaliyo gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iid ayaa isaguna ka mahad celiyay kulankan casho sharafta ah ee loo sameeyay. waxaan jecelahay kulli hadalka iyo muhiimadda hawshan ay leedahay iyo higsiga iyo hamigeenu leenahay waxaan qaban doonaa insha Allah shirkad ahaan kulan weyn oo aan ku soo casuumi doono jaamacadaha dalka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ama ICT-ga Somaliland iyo xukuumaddeena ganacsatada oo aan runtii halkaas ku soo bandhigi doono kuna faahfaahin doono hamiyada dambe aynu doonayno in dalka majaalka aan ka shaqeynano wasiirkuna halkan uu sheegay aan ahayn digital economy digital transformation ka waxa la yiraahdo isbedel ku dhacaya inaan ku soo bandhigno insha Allah. aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa maaragtay soo dhaweyntiina
iyo qaabilaadda iyo cashada caawa uma qalanno runtii ammaanta intan la eg laakiin waxaan isleenahay maxaan ku dhahdaa waxa aad keenteen wax ganacsatadeeni aanay ahaynun in khalad la fahmo oo ninka ganacsiga ahi dantiisa wuxuu ka eeganaya faa'iido uu helo